Soomaaliya ha noolaato Jubbaland ha israacdo ammaankeena ha horumaro bismillaahi raxmaani raxiim wasiirka taliyaha ciidanka xildhibaanka nagu helay kormeerkan haddee waa siday sheegeen madaxdiina waxaan idinkugu nimid bal xaaladda halkay maraysa maadaama uu gabagaba yahay tababarkaad ku jirteen xaaladdiina nololeed caafimaad iyo waxbarasho inaan aragno haddii xaaladdan ku jirno waad garanaysaan isbeddel baa jiro Soomaaliya amnigeeda inay la wareegto ayaa la go'aansaday ciidamadii halkan deganaayo ajnabiga ahaa miyaad aragteen shalay iyo xalay dib dambe uma arkaysaan waa naga tageen annaga la rabaa inaan isku tashanno nimankaan is hayno waa wiilal yaryar ah oo baadiyaha inta laga soo aruuriyey caqliga laga xaday iyo niman mushkilad ah oo ilaahay nagu imtixaamay oo dibadaha ka yimid oo Soomaaliya inay na horumarin oo degin u khaldayo oo ku nool dawlad baan nahay dadka dalkan u dhashay baan nahay annaga la rabaa inaan niyad bir intaan la nimaadno inaan ammaankeena wax ka qabanno qof kastoo adinkeedan ka mid ah oo doortay inuu dadkiisa u adeego waxaan guusha ku gaari karnaa inuu samir iyo adkaysi iyo niyad adeeg la yimaado taas ayuu asagana sharaf ugu noolaanayaa ubadkiisana uu dhaxal ugu tegayaa hawsha aad dooratay baa la rabaa inaad ka maray dhaliso samraasidkiisa ma waayo markii maxamed siyaad barre allah u naxariistee uu lahaa adinku waad maad soo gaarine wuxuu garanayay meeshuu ka soo bilaabay meeshuu ku gaaray waxaa la rabaa inaad duruufta ku samirtaan waxaa la rabaa inaad rag adag noqotaan waxaa la rabaa niyaddiinna birtood la timaadeen oo aad u soo doorateen inaad qaybtaan dadkiinna dalkiina wax u qabataan inaad ku adkaysataan taa waxaad ku gaari kartaan ismaqal tishibiliin calooshiinna oo isu furan sharaftood qaybsataan dhibkood wadaagtaan noloshood wadaagtaan baad ku gaari kartaan annagana idinkama maqninoo waadan garab taaganna mar dhowna hawshiinna gebagabay mari maadaama maanta oo dhan aad taagnaadeen meeshan ay qorrax tahay tababarka marka la xirayo aan si fiican u wada hadli doonnaa ciddii tababarka ku soo baxday oo qiimo leh madaxda qiimaysa la abaalmarin doonaa cidda kale ay ku dayan doontaa Soomaaliya ha israacdo Jubbaland ha israacdo idinkana guulaysto